ayaantan waxaa magaalada ku soo batay burcad hubaysan oo dadka ka dhacda moobeelada iyo bajaajyo dhaca sidaas daraaddeed ashtaka soo gaartay saldhigyada booliiska gobolka Banaadir ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ciidanku waxay sameeyeen howlgal saf ballaaran ah oo lagula dagaalamayay burcadaas in dhawaala aba magaalada ku soo kordhisay boobka iyo burcad hubaysan oo hub wax ku qaadanaysa oo dadka ka dhacaysa moobeelada kombiyuutarada iyagoo siyaabo kala duwan iyo wajiyo kala duwan waxaan halkaan idinku soo gudbinaynaa bahda saxaafadda si loo gaarsiiyo shacabka ummadda Soomaaliyeed goob kasta iyo goor kasta ay joogaan kiisaskii dhacay oo guud ahaan saldhigyada booliiska gobolka Banaadir aanu ku soo qabanay 2 ilaa 3 bilood ugu dambeysay waxay ahaayeen 94 kiis oo dhammaantood ahaa burcad hubaysan iyo isku dayo burcad hubaysan oo ay geysanayeen dad dhalinyaro ahaa oo damcaya inay dadka dhacaan 94taas kiis dambiyada 3 bilood ee ugu dambeysay ka dhacay degmooyinka gobolka Banaadir waxay kala ahaayeen waxa dadka saldhigyada u soo dacwooday ee ashtakada qofkii la dhacay saldhiga yimid ay soo dacwooday waa 38 kiis inta booliisku ay waafajiyeen cadaaladda iyo garsoorka maxkamadaha awoodda u leh maxaa yeelay anagu fuliyaasha sharciga ayaan nahay laakiin dabaqaadda sharciga waxaa iskale garsoorka maxkamadaha awoodda u leh maxkamadaha awoodda u lahaa waxa unreported cases ama cases aan la soo dacwoonin ay yihiin ilaa 16 kiis oo dadkii falalkaas ay ku dhaceen ilaa 16 kiis oo dadkii falalkaas ay ku dhaceen ay kaliya social media ashtakadooda dhigeen laakiin aysan geysanin saldhigyada booliiska gobolka Banaadir oo sida sharciga iyo qaanuunka dalka u yaala uu qabo ayna tahay sababta saldhigyada booliiska degmooyinka gobolka Banaadir degmo walba loogu sameeyay saldhig booliis oo qofka muwaadinka oo degmadaas ku nool inuu ka helo adeeg ammaan inuu ashtakadiisa geysan karo oo dacwada halkaas ay ka bilaabanayso sidaas daraaddeed 94taas kiis 16 kiis oo kamid ah waa unreported cases ama cases aan la soo dacwoonin oo saldhigyada booliiska aan loo dacwoonin laakiin kaliya la dhigay social media waxa baaristoodu socotaa oo cadeymahoodiina dhamaystirkoodii uu dhiman yahay ama dadkii falkaas ku eedeysanaa ay baxsadeen ilaa 15 kiis marka wadarta guud ahaan kiisaska 3 bilood u dambeysay ee dhicista moobeelada ay ka dhacay degmooyinka gobolka Banaadir waa 90 iyo 4 kiis waxaas garsoorka awood u la waafajiyay 38 kiis waxa 38 kiis saldhigyada booliiska degmooyinka gobolka Banaadir u soo dacwooday 25 kiis waxa la waafajiyay maxkamadaha awood u leh garsoorka 16 kiisna lama soo dacwoonin oo social media kaliya la dhigay 15 kiis oo kamidna baaristooda socota sidaas daraaddeed guud ahaan dambiidaasi falalkaas dhacay waa 94 kiis oo ay sanayaashoodii hadda sida arkayseen qaarna ayna hor keenay qaarna ay ku kala xaniban yihiin ay ku kala joogaan ama yaalaan degmooyin kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir saldhigyada booliiska degmooyinka gobolka Banaadir sidaas si lamida waxaan rabnaa inaan fariin halkaan noo ka faa'iideysanayna fursadan maanta aan fariin gaarsiino ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyo daafaha kale dalka inay ogaadaan social media inaysan ahayn bar laga dacwoodo isla markaana ashtakada la geysto sababta waxaan hore u sheegay saldhigyada booliiska gobolka Banaadir degmo walba saldhig loogu sameeyay waa in qofka muwaadinka ah oo dacwadiisa si fudud ku geysto saldhiga marka qof kasta ee muwaadin ah waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed nala shaqeeyaan qofkii ay ku dhaco waxuun dacwo ah la kulma ama ashtako wax dhibsado la kulma inuu si fudud saldhiga booliiska ugu dhow u geeyo oo dacwadaas laga diiwaan geliyo halkaasna ciidanka waajibkiisa ay ka qabsanaan lagu soo qabto sidaas si la eg waxa kale oo jira nambarka gaaban ee 991 ama 991 oo degmooyinka gobolka Banaadir shacabka Soomaalida ku dhaqan loogu talagalay inay ashtakooyinkooda gaarsiistaan oo si degdeg ah jawaab rasmi ah looga bixiyo social media ma aha goob laga dacwoodo marka aan ku celinayaa saldhigyada booliiska gobolka Banaadir ciidanka booliiska Soomaaliyeed heeganadii ah si la idinkaga caawiyo la kala shaqeeyo waxaan ka codsanaynaa in adinkana nala shaqeysaan oo dacwooyinka saldhiga la geeyo oo laga dacwoodo waajibkeena aan ka qabsano oo cadeymaha iyo eedeysanayaashaas ay soo dacweyseen maxkamadda la hor keeno sidoo kuwa maanta baad arkayseen sidaas si la eg goobaha u baahan in aan wax ka qabanno ummadana gaarsiisano waxa kamid ah Cabdullaahi Shideeyaha qaybta lagu gado moobeelada celiska ah waxay qayb ka yihiin dhiirigelinta in kiisaska dacwooyinka ay sii bataan kiisaska dhacdooyinka ah oo moobeelada lagu dhacay ay sii bataan maxaa yeelay tuugii ama eedeysanihii wax soo dhacay wuxuu si fudud ku tagayaa ku geenaya Cabdullaahi Shideeyaha iyagana howlgal saf ballaaran ahaa qaarna lagu fuliyo qaarna ay ku socdaan waxaan uga digaynaa dadka in falalkaas ku lugto inay ka waantoobaan ugu dambeyn waxaan rabaa fariintan inaan gaarsiiyo mas'uuliyiinta kala duwan ama xil haya ama hore xil u soo hayay inta ugu badan burcadda aan hadda ilaa hadda gacanta ku hayno eedeysanayaasha kiisaskaas ku eedeysan waxay staff u ahaayeen mas'uuliyiin kala duwan sidaas daraaddeed mas'uuliyiinta staff ku ahaayeen waxaan uga digaynaa
in aysan iyagoo daba socda saldhigyada booliiska tegin oo aysan u raadinin inay cadaaladda ka baxsadaan eedeysanayaasha iyaga la socon jiray sidaas si la eg qofka mas'uulka ee wiilka yar ee naftiisa ilaalinaya uu la socdo inuu ogaado wiilkaas la socda meesha uu ku dambeeyo iyo bulshada dhibaato inuu soo gaarsiisin waa mahadsantiin